waa ka noqon waynayaan laba sanaad isdaba socotaan oo leedihiin joker baan keenaynaayo la wasayo naya la idin kama ay xataa gaandariyadiini baad qaruuseen oo ayagoo la wasayo aad keenteen social media naya ninkii suxufiga idin ahaa oo aad ku daba fayli jirteen oo taariikhdiina sheegi jiro dhalfameyrka ahaa naya anigu dhalfa ahay haddaan ma jarteen ahay adinkuna waxaad diin dhalfamayr awowayaashii bay guska u dhaqi jireen naya adinkuna hadda anigaad cambarkayga falanqaysaan taariikhda social media idin taalo waa cambarkayga inaad falanqaysaan adinkoo qabiil dhar joker ayaa soo bandhigtay eedeymo foolxun oo ay ku sheegtay inay hablaha weer dhammaantood ku tilmaantay wasakh iyo kuwa iyaga xaarka ka dhaqa iyo sidoo kalena cawradeeda shaqaale ka ah dhammaantood maadaama ay views ka raadsadaan bay tiri sidoo kalena ay yihiin kuwa ugu baahida badan ee waqtigan u baahan Naciima Joker inay wax ka sheegaan Naciima waxa ay hablaha weer dhammaan iyadoon kala soocayn si xun ugu cambaaraysay inay yihiin kuwa aqmaqiina kana faa'iideysta kana shaqeeya inay dadka xumaantooda soo gudbiyaan waa arrin markaad eegto mucjiso ah sidoo kalena dhagxumo iyo foolxumo ku ah ummad badan oo dhan oo qabiiladan ah oo ku nool deegaano hor leh oo ah qabiilada Soomaalida ugu badan inay Naciima ku tilmaanto inay ka shaqeeyaan cawradeeda iyo dibadda waa wax foolxumo ah runtii dadkuna hay dhigahooda inay maqlaan han u wanaagsanayn oo shacab badan cadha ka abaraysa laakiin waxa qasbi kara ayaa la Soomaaliya waxay tiraa waxa dhiriga karka ka keenay waa kulay soo gaadhay darteed iyadba waxay ka keenay hadalkaas waxay tahay waa Daahir Cali Sow oo ah nin ka soo jeeda beelahan haysada gaarka u beegsanayso kaasi oo ka daba hadh waayo muddo ka badan sanadana iyada daba socday waa arrin mucjiso runtii oo si weyn u baahan in looga fiirsado Naciima waxa ay ku dhacday khalad weyn oo ah kii Daahir Cali Sow ku dhacay mid lamid ah kana weyn oo lagu cinqaabi karo runtii waad soo dhageysateen codkeeda xagga hore ku soo daawateen barnaamijkan ayaa saaka ka hadlayna saaxiibayaal laakiin marka hore waxaan ka codsanayaa intaad muuqaalka ku dhameystirin ku hirgelin halka xasaasiga inaad muuqaalka leeg saarto una share gareyso saaxiibadana ku xiran Facebook kala barteen YouTube-ka Cabdalla Deeqsina inaad soo buuqato subscribe hada dhahdo soo kalena aad kan bil ka furato saxdo la socoto warar xaqiiqa ah iyo barnaamijyada ugu dambeeyay ee toddobadii la soo dhaafay iyo waxa hadda aan ku jirno ee caalamku marayo inaan dhammaan kaga soo sheekayno dhammaantoodna aad ku noqoto kuwaad kuma dadaalasato dhammaan aad xasixiisa inay farxad geliya haddaba Naciima waxay sheegtay inay iyagaan hablahan hawiye iyo kuwoodii hore hay ugu dhaqi jireen bay tiri saxarada kala qidran kuwan iminkana loo baahan yahay inay cawradeeda dhaqaan waa arrin foolxun raantii markaad eegto aadna dhaqanka uga soo horjeeda mana ahan mid loo dul qaadan karo ama mid ay dadka Soomaaliyeed oo ah kuwo dhammaantood ehel asxaab iyo soo kala qaraabo gacal iyo xigaalo intaba isku ah hay haddana ay maanta ay yiraahdaan waa macnaha dhagahooda soo maqlaan oo Naciima ka maqlaan waa mid foolxun laakiin waxa koostab kaga dhigay amba geliye kuleelka inta leeg waxa ay tahay waa Daahir Cali Sow oo isagu ka daba hadh waay gabadhan damana dhigtay kana dhigtay wartoojadeed koobaad amba hadafka koobaad uu leeyahay oo ah inuu Naciima ka oysiyo subax kastii hadaad u talagalay inaad qofka oysiyo waxay noqonaysaa mid foolxumo ah waa sida ay Naciima hadalka u dhahday taasina waxay tahay inaad runtii waxa aad loo yaqiiqsooda ah oo foolxumo rugo iyo wax lagu tilmaami karo inay tahay nacasnimo foolxun saaxiibayaal barnaamijku intan ayuu ahaa inay Naciima soo dhacdo loo baahnayn ee barnaamijka la garaya oo shir garaya saaxiibadina kale ee ku xidhan